todobaadkan waxaa barnaamijka stuudiyaha kontoneshanaad idaacadda v o a barnaamijka qubanaha nagu soo booqday profesor cali khaliif galeyr madaxweynaha maamulka qaatumo ee soomaaliya. profesor kusoo dhawow idaacadda v o a stuudiyaheeda kontoneshanaad. walaad aad iyo aad baad u mahadsan tahay. waa salaamayaa daawadayaashiina adduunka afarti muxuu ahaa meel walba jooga. aad iyo aad baan u wada salaamayaa. marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan wareysigeena guda galno. marka ugu horeysa waxaa jiray maamul qaatumo la yiraahdo oo Soomaaliya meel kamid ah ka dhisnaa oo aad madaxweyne u tahay. dabcan dhulka maamulka uu ka dhisan yahay sidaan ogsoonahay waxa sheegta Puntland iyo Somaliland oo labada dhinac ka kala degan. dadka qaatumana maamulkaaga iyo madaxweynimadaada inkastoo ay taageersan yihiin haddana caqabado badan baa haysto oo quwado ka xoog badan baa dhinacyada ka xiga. marka realistically markaan u hadalna xaqiiqda ka eegno maamulka qaatumo ee hadda aad madaxweynaha ka tahay halka uu ka jiro iyo halka uu ka dhisan yahay bal wax nooga taataabo. bismillaahi raxmaan raxiim. khaatumo waxa ay ka dhisan tahay waa gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. bal waa usoo noqon doonaa. ma aha micnaha marka Sool iyo Sanaag iyo Cayn laga hadlayo inay khaatumo leedahay inch walba ama mitir walba oo dhulkaas annakaa leh. xuduudaha jira diyaar baanuna unahay ama Sanaag ha noqoto ama xagga Cayn ha noqotee annaga iyo dadkay dhulku naga dhexeeyaan in la isaga yimaado. laakiin waxaa ka weyn taas dee ummad Soomaali ah oo dhulka degan oo 1000 sano deganayd oo cid walba gaaliya islaamba loo yaqaano in qolyo kale ku murmaan yaa wax yaab leh ah. murankaas meel kale kama taagna Soomaaliya. waxay uga taagan tahayna qolyana waxay leeyihiin Somaliland baanu islahayn oo Ingiriis baana wada xukumi jiray. Ingiriis annagana ma xukumi jiray. Ingiriis 20 sano aan la dagaalamaynay. dad badan na waa nagaga dhinteen. laakiin annagu waxaanu islahayn markaana waxaad daafacaysaan Soomaalinimo iyo Islaamnimo. kuwii nala dagaalamaya ayaan darradu waxaa weeye kuwa hadda muranka wada kuwii markaana lala dagaalamaya Ingiriiska raacayay. haddana waxaanu qabnaa cid joojin kartaa ummadaasu waxa ay doonaysaa waxaa weeye wax saayida ma ay rabto sidii degmo walba ama gobol walba oo Soomaaliya inuu ayahiisa uga taliyo adaweynuhuna isla qirsan yahay inay uga taliyaan. Somaliland iyo Puntlandna waad og tahay. warbaahinta adduunkuna waa la wada socdaa. international community-gu ama ha noqdo United Nationka ama IGAD ama kuwan ururadan carabta iyo islaamku gidigood waxa la isku raacsan yahay Somaliland iyo Puntland ay dhulka malihidine uga kaca dadka leh ayahooda ha ka taliyeen iyo sidaa ay door moodaan maamulkooda ha u dhisteen. taasaanu hadda 3 sano ugu dambeeyana aanu wadnay. mid lagaga hadhayana ma aha. sheegashadu waxaa ka weyn ficilka ama falka ay ku kacayaan. Somaliland ciidamayba keentay dhulkii oo hadda magaalada Laascaanood gacanta ku haya ciidamadoodaasuna marba laakiin Puntland teedu waa muran aan lagu taagnayn. waa muran iska hadal hadoofa weeyateedu. waa gartay. waxaan tix raacaynaa isla caqabadaha hor yaalla maamulkaad madaxweynaha ka tahay ee qaatumo. Soomaalidu waxay tiraahdaa godinye ima goysin haddaan gobolkay kugu jirin. maamaha Soomaaliyeed baa tiraahdo geed baa ku maamaha la yiri. marka ma moodaa in dhinacii Somalilandna caqabada idinka hor taagan dhinaca Puntland caqabada idinka imaanaysan labaduba ay yihiin dad reer qaatuma oo aad wada dhulka wada sheeganaysaan oo wada leedihiin. Soomaalidu waxay tiraahaa cayaarta haddaan ku jirin maxaa habeenkii loo tuma. cidda ku murmaysay le dad khaatuma ay la joogaan annagu ma dafirsanin. afraad inay Garowe joogaan afraadina ay joogto magaalada Hargeysa. laakiin awrkooda lagu kacsanayaa. kuwa Garowe joogi jiray Puntland joogi jirayna Hargeysay aadaan markay doonaan. kuwa ugu dambeeyay hadda waa kuwa Somaliland wax ka ahaa oo Garowe soo aada. de qofku isaga ikhtiyaarkiisa la meeshu aadayo. laakiin ummadda dhulka ku nooli way tashatay. haddii nin reer Dhuusamareeba ama afraad reer Dhuusamareeba ay tagaan gaalkacayo oo yidhaahaan annaku gaalkacayaan waana dhacday oo yaanu aadaynaa. waxaa yaab leh dadka kale ummadda kale xujo kuma aha.
laakiin reer khaatumo arrimaha uunaad muddo mar walba in la daba wado waa taa waa isaga barannay waxay doonayaan ha sheegeen kuwaasuna lama huraan waa caws jilaal kuwaasuna iyakoo khaatumo joogun baan la arkay marka walwal badan taasi naguma hayso dhowrka qofee jooga hadday doonayaan photo opportunity marka uu Nicholas ka yimaado Garoowe qolyaha Puntland ha kaxeeyeen oo sawir ha iskala qaadeen laakiin sawir ummadda aayatiinkeeda iyo waxay damacsan yihiin waxay rabaan marnaba isma hortaagi doonaan waa gartay hadda dagaal baa ka dhacay dhulkii Khaatumo maamulkaaga madaxda ka ahaa oo ka talinaya dagaal ka dhacay Somaliland baa qabsatay sidaas sheegaysa meelo kamida Puntland hadday doonto mararka qaar ciidan bay u dirtaa oo ku soo weerari jirtay oo Buuhoodle iyo agaariheeda way ka dhaceen dhowr jeer marka colaadaha markaad fiiriso iyo sida wax ku socdaan hal kale oo aad ku fakarteen ma jira oo aad si leedihiin sidee xeerada lagu xigtaa alkoon ku nabad galaan oo Khaatumana ay dhulkeeda u heshaa xaq u heshaa dagaalkii colaadii dhiig daadanayna loo joojiyo waa midaanu rabno taas annaku dhul Puntland leedahay ama dadku waa daris baa leeyahay Soomaaliyana hadda ama aynan muxuu ahaa ama gooji ama goojin geela gugun baa lagu tirin daboolay dadka jooga Puntland ku dhaqan dhulkoodana ma rabno awoodna kama rabno Somaliland sidaas leeg haddaanu nabad ku helayno iyo wada hadal iyo walaaltinimo waa midaan rabno haddaanu ku weyno dee wixii alaale sidii aanu dhulkayga ku heli lahayn dadka dhulkaygana ku xoreysan lahayn khasab bay nagu noqonaysaa Somaliland Puntland walwal badan oo laga haya oo ciidan iyo xoog ay ku soo aadayaan Khaatumo ma ay jirto awoodeedaba ma leh waxay walwal nagu haysaana ma ay jirto faragelinta quray wadaan odayaasha hadda aad sheegaysa magaalada Garoowe jooga ama kuwa la shaqaysto ama Buuhood la jooga ama Taleex ama Boocama waa jiraan laakiin annaka midda nagaga filani waa dadka shacbiga waxa ay rabaan wada hadal diyaar muutii marka annagu wada hadal diyaar baan u nahay laakiin iminka sida muuqata Puntland waaba isku daynay intii Cabdiweli Cali Gaas la doortay madaxweynenimo loo doortay campaignkiisa hore iyo warkiisana waa ogeyn in badan baanu isku daynay wada hadal inaanu la bilowno isaga ka fool dad ka agdhow isaga odayaal waxgarad waxaad moodaa wixiiba waxaa isku fuuqsatay wararkan ugu dambeeyay meediyadu ay ka qaadaysay madaxweynaha Puntland in waxaan looba fadhiin uu ka hadlayo oo leeyahay aniga dastuurkayga yaa faraya inaan Soomaaliya sanaag iyo cayn aan leeyahay adiga siyaasi Soomaaliyeed baa tahay xiriir badanna waa la leedahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed meel kasta ha joogaan Puntland ama Somaliland ama Soomaaliya ha joogaan shakhsiyan ma ula xiriirtay labada maamul madaxdooda Cabdiweli Cali Gaas iyo haddaan afka ku dhufto iyo Siilaanyo ma la xiriirto ma weydiisay Siilaanyo waa inaanu saaxiib nahay aadna isugu dheernahay siyaalo badanna u soo wada shaqaynay iskuulada waa igu horeeyay dalka Ingiriisku wax ku bartay anna dalkan Mareykanka wax ku bartay 64 buu Soomaaliya ku noqday anna 65 baan ku noqday shaqaale dawladeed baan wada ahayn waa isnaqaynay saaxiibna waa nahay reerkiis iyo reerkaygu familigiis iyo kaygu asxaab baan nahay waa inaan dadka isaga sokayno laakiin siyaasaddu maalinba meel bay joogtaa maamulkan uu madaxda ka yahay iyo kan aniga madaxda ka ahay runtii waxa dhex yaala arrin culus oo ah xaq darro iyo duulimaad iyo amar ku taaglayn xagga Siilaanyo xaafadiisa ka socda haddaan anagu helayna waana wada hadalay intii hadda anigu aan madaxweynaha noqday ma aan wada hadlin laakiin ka hor baanu xiriir dheer lahayn waana maqlayaa meelaha hadda waa ka maqlayaa Somaliland iyo Khaatumo wada hadalaa u socda wada hadalana ma socdaan laakiin kuwa aanu rabno weeye kuwa aanu u badheynayno weeye kuwa aanan qarsanayn weeye waa haddii ay neefteedu isqabato waa haddii wada hadalladaanu isaga imanaynaa loo gudbayo meeshay sartu ka qurmayso oo ah ciidamadiinan dhulka jooga ka baxeen haddii taa aan ku guuleysano wada hadalka annagu diyaar baan u nahay haddii kalena waxalaala waxay nagu kalifi doonto saanu dhulka iyaga ku xoreysano waxaanu kala hadhaynaa ma jirto Soomaaliya wad aragtaa waa lagu hanweynaa oo caalamkii iyo sida soo hadal qaadayba waxaa la doonayaa in 2016 la gaarsiiyo doorasho iyo horumar
khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana wad aragtaa halka uu marayo oo baarlamaankii hadda mooshin u yaalaa marka bal adoo soo koobaya daqiiqadaha yare noo haray maxaad u aragtaa in khilaafka lagu xallin karo sisu kula muuqdaa khilaafka waxaa lagu leeyahay dee meesha madax baa jirta madaxweynea jira prime minister baa jira council of ministers baa jira baarlamaan baa jira ummaddan iyakaa mas-uul markan ka ah kullukum raaci wa kullu raacin mas-uulun can raciyati waa xadiid nabowi dadkaasaa mas-uuliyadda leh laakiin maxaa la odhan jiray 20 jil mudug u dhashay ilaa ceebtiisa ma asturin arrin u taalla iyaka weeye laakiin shacabka soomaaliyeedna waxaan u malaynayaa iyaka laftooduna eedda waa ku leeyihiin markan inay ka kacaan hurdada inay ka kacaan ficiltankan yaree hoose aan wax badan inoo midho dhalaynin markan waxaa loo baahan yahay dad ama shacbi iyo xukuumad iyo wax allaala wixii international community-gu inala qabanayo hadda international community-guna wakhtigan aan maanta joogna waa very much part of the problem mushkiladda ina haysata door weyn bay ina ku leeyihiin door weyn bay ku leeyihiin cid iska dagan oo kala daadsan cid walba waa rabtaa inay u taliso xagga u jeedo xaggaa u jeedo hadda waa laga yaabaa siyaasad guud oo dalka maraykanka ama ingiriiska ama sacuudi arabiya ay leedahay oo guud inay jirto laakiin cidda wax fulinaysaa ee airportka xamar joogta ee safaaradda ah ee qaramada midoobe ka socotaa qofka ibni aadankii ihi inuuma tudhayo anugu taan qabo kuumana tudhayo sida isaga markaa ugu muuqato waa ninaan dhulka u dhalan waa ninaan ka fikeri karaynin 10 sano 20 sano 30 sano ummaddana maxay ku noolaanaysa dadkaa leh hawshaa ummaddaa leh madaxdeedaana leh haddaan la kala roonaan roob ma do-o waxaan dagaalkan yar ee aada maalinba mooto meel buu marayaa ee ina wada madax maraya ee aada moodo waxbaba inaan la xeerinaynin nabadgelyada xamar ka taalla hadda inteeda badan hadda shabaabba ma ah nabadgelyada meesha ka taalla iyo xasilooni la-aantu waa mid madaxweynaha iyo prime ministerka iyo xukuumadda dhex taalla baarlamaanka dhex taalla haddaan markaa loo wada guntan oo meel looga soo wada jeesanna anigu walwalba weyn baan ka qabi doonaa waxa 2016 waxaynu dhaxli doono dhitada inoo taallaa maxay maanta tahay dhitada inoo taallaa waa colaad maangaabnimo ficiltan yaroo hoose oo berri taariikhdu aynu xusiba doonin waxay uun odhan doontaa ummaddaas waa ummad isxukumi kari weyday tusi kari weyday inay dhibaatooyin meel walba waa jiraan laakiin caqli baa la isticmaalaa dad aan isku af ahayn oo isku diin ahayn oo waxba isu ahayn baa adduunka ilaahay dal ka wada dhigaa oo ku mintada sida iyagu u heshiin lahayn wax wada qabsan lahayn waa garta professor aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay